Ladies and gentlemen, waa idin salaamay. Videogan waxaan igu tusi doonaa sida Google AdSense loogu xiro website-kaada. Haddaba intaan u gudbin muuqaalka, haddii aad rabto markaas Google AdSense waxa uu yahay iyo markaas shuruudaha lagaa rabo inaad ogaato intaadan website-kaada ku xiran. Hore ayaan waxaan u sameynay muuqaal kale oo aan ku sharaxnay Google AdSense waxa uu yahay iyo shuruudaha lagaa rabo. Haddaba haddii aad rabto inaad videogaas daawato, linkiga waxaan dhigi doonaa qaybta description-ka ama meeshaan kore oo aad ku dhufan kartaa. sidoo kale haddii aad rabto in Google AdSense website-kaada lagugu xiro ama haddii markaas aad wajahayso cillado markaas la xiriir Google AdSense, haddaba si toos ah waad nagula soo xiriiri kartaa. WhatsApp numberkeena waxaan dhigi doonaa qaybta description-ka ee video ama qaybta comments-ka, oo halkaas ayaad nagala soo xiriiri kartaa. Waxaan kaa caawin doonaa markaas wixii su'aal aad qabto. haddaba Google AdSense markaas si aan ugu xiranno website-keena waxaan qaadi doonaa kaliya 2 steebood. Step koowaad waxaan arki doonaa markaas sida Google AdSense account markaas loo abuurto. tab cusub ayaa furaysaa, kadibna waxaad tagaysaa markaas adsense.google.com ayaa leedahay, kadibna waxaa leedahay markaas enter ayaa leedahay. sidoo kale haddii aad u baahan tahay linkiga waxaan dhigi doonaa qaybta description-ka, halkaas waad kasoo gali kartaa ee videogan. haddii aad Google AdSense account aad haysato, stepkan waad ka boodi kartaa. si aan markuu abuurno, marka hore waxaa ku dhuftaa meeshan ay ku qoran tahay sign up ayaad ku dhufanaysaa. inta ayuu ku keenaya wuxuu ku leeyahay choose an account. waxaa ogaataa markaas markaad AdSense account samaysanayso kaliya inaad markaas hal account oo AdSense aad samaysan karto, oo 2 account AdSense ma u galo. marka waxaad samaynaysaa Gmail-ka aad rabto ayaad markaas ku xiraysaa. aniga hadda kan ayaan isticmaalaa, waan ku dhufanaa. inta ayuu ku keenaya markaas AdSense marka wuxuu ku leeyahay marka koowaad step koowaad waxaa ku xirataa website-kaada. haddii aadan hadda website lahayn oo kale I don't have website baad dhihi kartaa. markaasi website-kaada ayaa meeshan gelinaysaa haddii aad haysato markaasi website. hadda tusaale ahaan waxaan ku tijaabinaynaa website-keena. marka intaas aad sameyso, step kalaad waxuu ku leeyahay AdSense markaas ma ogashaa inuu waxyaabo suggestion ah markaas uu kusoo diro. waa iska dhigi kartaa ama haddii kale maya waa iska dhigi kartaa. aniga hadda maya iska leeyahay. marka xigto wuxuu ku weydiin doonaa country-ga ama territory-ga ama waddanka aad joogto markaas ee payment-ga lagugu soo diraayo ku xiro. waxaa ogaataa markaas listigan nasiib daro inuusan markaas AdSense uusan markaas ku jirin Soomaaliya meeshaan. laakiin waxaa isticmaashaa waddan kale oo markaas hadhow lacala haddii AdSense markaas uu verify garay account-kaada ku dhaho oo xog kugu soo diri karto. tusaale ahaan anaga hadda waddankan aan iska qaadanaynaa, waxaan iska qaadanaynaa waddankani. marka intaas aad samayso markaasi kaliya waxaa leedahay meeshaan wuxuu kugu siin doonaa wax la dhahayo markaasi terms and condition ayuu kugu siin doonaa oo akhrin kartaa shuruudaha lagaa rabo iyo waxyaabahaas oo dhan. marka anigu hadda waa akhriyaan leeyahay, kadibna markaas waxaan leeyahay start using AdSense ayaan ku dhufanaa. markii aan meeshaas ku dhufato inta ayuu ku keenay markaas. saa ujeeda hadda AdSense waan samaysanay oo step koowaad wuxuu ah markaas inaan Google AdSense aan samaysanay. step ku xiga ayaan waxaan arki doonaa markaas sida loogu xiro website-kaada Google AdSense. step kalaad waxaan arki doonaa markaas sida Google AdSense loogu xiro website-kaada. stepkan aan isticmaali doono waa markaas qaab fudud. waxaa kusoo laabataa markaas qaybta backend-ga ee website-kaada ayaad kusoo laabanaysaa WordPress-ka, kadibna waxaad hoos soo degaysaa waxaa ku dhufanaysaa meeshan plugins ay ku qoran tahay, dul tagaysaa, kadibna waxaa ka doorataa add new plugin meesha ku qoran tahay. kadibna meeshan waxaa ku qortaa markaas plugin-kan u baahanahay waxaa loo yaqaanaa markaas sitekit ayaad ku qoraysaa, kadib search ayaa leedahay. sitekit-kan u baahanahay waa kana plugin-kan waxaa iskala ama sameeyey markaas Google ayaa iska lahan. waxaa nala soo degtay in ka badan 4 milyan ee markaas usersaan. plugin-kan markaan ayaan u baahanaa wuxuu ka caawinaa plugin-kan markaasi Google Console iyo AdSense iyo speedka website-kaada iyo markaas Google Analytics SEO-ga waxyaabahaas oo dhan ayuu markaas ka caawinaa. kaliya waxaa ku dhuftaa marka meeshan ay ku qoran tahay install now. kadibna waxaa ku dhuftaa meeshan ay ku qoran tahay markaas activate ayaad ku dhufanaysaa. kadib waxa uu ku leeyahay markaasi plugin-ka hadda waad la soo degtay, markaas waxaa bilowdaa setup gareynta ama haddii kale meeshaas waad ku dhufan kartaa bidixdooda oo kusoo muuqana waa isku mid. kaliya waxaa dhahdaa markaas start setup ayaad leedahay. start setup markaa dhahdo wuxuu ku leeyahay markaas Google Analytics ma rabtaa macnaha inaad ku xirato qayb ka mid ah marka aad setup-ka aad sameynayso. Google Analytics wuxuu kaa caawinaa markaas inaad ogaato dadka website-kaada soo booqday iyo markaas inta traffic ah bil walba heshay iyo markaas waxyaabahaas oo dhan xogtaas oo dhan ayuu kaa caawinaa. marka tig ayaa saaraysaa haddii aad u baahan tahay, kadibna waxaa leedahay markaas sign in with Google ayaad leedahay. kadibna wuxuu ku leeyahay markaas choose an account ayuu ku leeyahay. waxaad markaas ogaataa account markaas aad Google AdSense ku samaysatay ama Gmail-ka aad Google AdSense ku samaysatay iyo Gmail-ka markaas sitekit-ka aad hadda aad ku samaysanayso. waxaa hubisaa labadaas inay Gmail markaas isla haadaan. marka kaliya waxaad doorataa Gmail-kii.
so stepka xiga wuxuu ku leeyahay site-ka markaas access u sii markaas Google account-kaada kadibna waxaa leedahay continue ayaa leedahay so wuxuu leeyahay marka aniga hore ayaan markaas u verify gareey so kadib wuxuu leeyahay markaas next so kaliya waxaa leedahay next kadibna waxaa leedahay markaas allow ayaa leedahay matrix waa dashboard-kaada kadib allow dheh kadib markaasi hore ayaa markaas waxaan ugu xirtay Google Ansol sidoo kalena waxaa dhahdaa next ayaa leedahay markaasi kadibna waxaa dhahdaa next so wuxuu ku leeyahay markaas waxaa ku xirataa analytics ka haduusan hore kugu xirnayn waxaa dhihi kartaa complete setup baa dhihi kartaa oo ku xiran kartaa so hadda maadaama hore aan ugu xirta laakiin aan ka furay haddana waxaan leenahay complete setup aan leenahay keliya kadibna waxaa ku dhuftaa marka meeshan aan qorantaa okay gadid ayaad leedahay so markuu intaas wuxuu ku siinaa markaasi dadka waxyaabaha website-kaada soo booqday iyo waxyaabahaas oo dhan so marka aniga hadda waxaan u baahanahay si keliya waxaad tagtaa meeshan site-ka hoosteeda meesha setting ku qoranta ayaa tagaysaa so setting-ka marka aad ku tagto keliya waxaa kasii doorataa meeshan connect more services ay ku qoran tahay hadda saa ujeeda meeshaan waxaan hore ugu xirnaa markaas analytics iyo console hadda waxaan u baahanaa marka AdSense so waxaa ku dhuftaa marka meeshaan connect more service ay ku qoran tahay kadibna meeshaan waxaa ka doorataa AdSense so hadda aniga AdSense aan u baahanahay kadibna waxaa leedahay markaas setup AdSense ayaa leedahay so marka account doora ayuu ku leeyahay isla gmail-kii hore aan isticmaalnaan dooranaynaa kadibna waxaa dhahdaa continue kadibna waxaa dhahdaa markaas continue so marka waxa uu nagu soo celinaa markaas website-keena ayuu nagu soo celinaa oo wuxuu ku leeyahay website-keena waxaa ku dartaa AdSense account ku dar so marka waxaa ku dhufataa bottom-kan ay ku qoran tahay add site to AdSense ku dhufo kadibna saa ujeeda wuxuu automatic markaas u furayaa tab cusub oo AdSense ayuu ku dhex geenayaa oo uma baahnid inaa markaas AdSense aad gasho isaga ayaa markaas automatic AdSense ku wareejinaa kaliya waxaa hubisaa markaasi labada email inay isla hadaan so waa kana website-ka isla markii magaciisa hore ayuu kasoo booday kadib waxaa dhahdaa markaas save ayaa leedahay so markaa save dhahda wuxuu ku leeyahay markaasi site-kaada markaas verify ownership verify garay so waxaa leedahay waa u ogolaaday AdSense markaasi Google AdSense markaas inuu website-keeda markaas xayisiimaha koodka uu dhigo automatically kaliya waxaa kadib waxaa dhahdaa next so kadibna wuxuu ku leeyahay request review oo macnaheedu taa markaas website-kaada review in lagu sameeyo codso oo AdSense markaad website-kaada ku xirato review ayuu ku sameynayaa 7 maalmood gudahood waxaa laga yaabaa 3 maalmood 2 maalmood inuu kugu soo diro email oo kugu soo jawaabo haddii uu kusoo aqbalay iyo haddii uusan kusoo aqbalin so marka shuruudaha iyo waxyaabaha laga rabo muuqaal kale ayaan hore ugu sameynoo daawan kartaa ama haddii kale waxyaabahana waad akhrin kartaa so keliya waxaa dhahdaa kadib markaas request review ayaad ku dhufanaysaa saa hadda ujeeda website-keena wuxuu leeyahay getting your site ready to show ads oo macnaha waa uu diyaar garoobaya so haddii aan meeshaan iska xirno so hadda marka waxaa ujeedaa marka website-kaada inuu leeyahay getting ready markaasi uu markaas maxaa lahayo uu automatic ahaan markaasi AdSense wuxuu gmail kugu soo diri doonaa 7 maalmood gudahooda ugu badnaan ama 3 maalmood 2 maalmood haddii uu markaas kusoo aqbalay iyo haddii kale so mar walba gmail-kaada fiiro gaar ah ku hayo AdSense markaas haddii uu kusoo aqbalay haddii kale saa u ogaato haddaba qaabka maanta aan isticmaalin fikradan waa qaabka ugu fudud markaas haddii aad WordPress website leedahay aad isticmaali karto oo markaas Google AdSense aad ku xiran karto so haddaba qaabkan waa qaabka ugu fudud ee markaas Google AdSense markaas aad ugu soo xiran karto website-kaada haddii aad rabto markaas inaad ogaato xayisiimaha iyo qaabka loo maamulo AdSense markuu kusoo aqbalo muuqaalo kale oo dhowr ayaan ka sameynaa oo markaas YouTube-keena aad ka dhex helaysaa so haddii markaas aad wax su'aalaha qabto markaas ama AdSense aad cilad kala kulanto si toos ah waa noola soo xiriiri kartaa qaybta WhatsApp-ka numberkeena oo qaybta waxaan dhigi doonaa commentiga haddii sidoo kalena aad u baahan tahay markaasi website inuu cilad ka haysato ama haddii aad u baahan tahay in website lagu sameeyo sidoo kale waa noola soo xiriiri kartaa so muuqaalka xiga ee qayb badan